gabadha yar oo 5 jirka ah markay dhibtay hooyadeed waxay ku fikirtay inay maaskaha cabsida badan leh inay u soo gadato iyo wajiga u gashato way baxday maaskihii markay gabadha soo gadaysay alaabta lagu cayaaro ayay maaska aragtay maaskii soo qaadatay guriga keentay habeenkii koowaadba wajiga u gashatay narkii u damisay gabadha seexa markii ka waysay gabadhii waxay ku cabsiinay maaskii oo cabsida ahaa cunugtii 5 jir waay 5 jir markii maaskii ay aragtay yani waxay aragtay wax wajigiisa cabsi cunugtii qaraacanka ay ka qaaday waxa ku dhacay marad nafsi waxa ku dhacay yani waali aan caadi ahayn ee ka soo kabasho lahayn kadib maxaa dhacay qisada dhammaystiran aan wada dhegeysanay ankaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصدين ما توحي تاهي ilmaha yararka ah masaakiinta ah ilmaha yaryarka ah maskaxdooda way yar tahay aqligooda wuu yar yahay waa ilmo yar wax walba ma xamili karaan adiga qofka weyn ah maskaxdaada intay xamilayso ilmaha yar ma xamili karaan ilmaha luuqinta loo galay la dhahayna qalad waaye ilmaha yar inta maaskar loo soo gashto habeenka lagu cabsinayna qalad waaye هي بحلا كعنا بين مركوس إحنا عنق لنا قلط واحد يعني عفسدا صاحب حرميس عنق هويدان وهويدا يرأى يقصد قصعته هويدان كواحد يقطع جامعات اللي كان يسوي حي كان ستي شقالة دي كودي إذا ممكن شيء عاملة إيه ممكن شيء قعنتي كسرتي كودي شقالة هي سي كودي شقالة بالبارنسي كودي شقالة يعني وقعد وقفته waxba kama oga hooyada dhashay waxba kama oga guriga way soo gashaa way ka baxdaa aabbiin waa soo galaa habeenkii soo galaa aan subaxin waa baxaa asagaaba karoon ba waxooga u dhadhawaado gabadhiisii habeenkii inta saseexan u yimaado u sheekeeyo yani sida ku ogaado laakiin tii hooyo ahayd laba ogaataa lagu yiribo marka waxaa dhacday jaamacadii inay dhamaysay jaamacad markay dhamaysay waxay go'aan ku gaartay inay gabadheedii intaas jaamacadda ay ka maqneed inay ag fadhiisato gabadhana 5 sano jirtaa 5 jir waa gabadhii markay istiri gabadhaadii bal asbaratiine haddii iyo kow gabadhii laguma karo inay hooyadeed soo dhawaato hooyadiina gabadheeda si ulama caamisho ma hayso laano ilaaqaad ma kama dhexeeyo contactiba labadooda maba ka dhexeeyo wax walbay samaysaa wax walbay u qabataa nakata waa diidi gabadhaan waxay rabtaa wax la dheelo alaabtay ku dheelayso alaabeed wax kula dheelo wax la joogo wax cuntada markay cunayso u sheekeeyo kartoonaday fiirsanaysa xataa TV-ga xataa gabadha shaqaalaha taqaano oo kartoonkay fiirsataba la socoto hooyadeedba maanta dhalatayba hooyadeed waxaa noqotay gabadha shaqaalaha waxba kama oga hooyadayna waxay dhibsanaysaa gabadhaan alaabtaan meelaha ku garaacayso wax walba ay samaynayso wax walba ay jibinayso way dhibay alaabtan way ka aruuraysa qolay ku xirtay gabadhii waxay sii noqotay nervoso waa uysaa waa qaylisaas qaabay wax ku siisan ma taqaan qaabay ku disiisa ma taqaan qaabay ku wada noolaada ma taqaan haddii barasho ku isku rafaadaysa isku daba socday saas isku ahayn adiga gacan qaata way gaarto hooyadii inay gabadheeda u gacan qaato disho cunugtaan madax adka cunugtaan dhib badana cunugtaan balhasho waa cunugtaan inkaar qabto aysa u leedahay bab dhenab siinaysa adiga marka dambe waxay tiri gabadhaas maxaa isaga dilay waxay geysay meesha alaabta lagu gado oo alaabyada alaabteedna usoo bixisay meeshii alaabta lagu gadayay ilmaha waxay ku dheelaan gadaya markay gashay waxaa jiro maaskaro xataa oo cabsi badan oo yaalaan ilmaha waaweyn agataan maaskagii inta u fikirtaa warta waxay tiri gabadhaan seexa habeenkii waaba ka weysay ama maaskahan gadataa maaskay soo gadee yaa guriga keen habeenka koowaadba cunad markay seexadeeda maaskay u gashatay maaskay ha gashatee nalka ha u damisay gabadhii jiifma ka weysaa meeshaasay soo istaagtay maaska waa maaska laga cabsanayo nal yaroo tooshan waa u qaadatay tooshkay ifisay maaskay u ciisay dharka cajiib ah u gashatay maaskiin dalaq u siisay cunugtu waxaa u malaysaba yaa bahallaa ku yimid oo ku qaadanaya qayladay gashay waa cunugtu waa way albaabka iska furtay
hooyadii maaskii meel ku turtay gabadhii ka daba carartay way soo qabatay gabadha afkeeda jooji waa afkeeda xusima si walba deesh diriska soo bax si walba deesh yaa allah yaa sataari ku seexisay markay seexisay mas jiifayso marka hadduu aabeedii maxataa gabadhi wax yar markay jiiftaba way soo qaylinay way soo sasay markay wax yar jiiftaba waa markay xilli gabadha caawa maxaa ku dhacay ayada waxay samaysay way taqaanaa hooyadan ma sheegayso gabadhi waxay noqotay marka waaga hadduu bariyay gabadha hadday soo kacdo cabsi labada gacmood inay isqabsato inaysan joog dhihin inaysan hadlin waxay garaaci jirtay hadalkii badnaay alaabtay soo dadaadi jirtay war maqal la-aanta wixii dhan ma jiro meeshaan inta kusoo arurtay fadhiisatay kursi halkaan ay cabsane nalka mugdigiis way ka cabsane musqusha kaligeed inay aad way ka cabsane inay dhaqaaqad way ka cabsane albaabka gambaleer qafka soo yiri intay meel isku aruursay qaylinay waa yaabanta hooyadii hadda koob iyo shalay way shalayso waxay tiri maxaa saan u samaysay maxaa gabadha saan ugu samaysay gabadhii saas ahay laakiin waxay noqotay habeenka xataa hadday seexis inay seexanayso marka isbuuci kale gabadhii waa soo roonat meesheeda ka bilaawda meesheeda markay ka bilaawda hooyadii waxay istiri maaskana waa maaska fiican bee ku bilaaw iyadan maaskayadan u gashatay gabadhaadii wayba ku weelo gaartee ma ku quusanaysaba maaskay u gashatay maaskay u gashatay sidii ku samaysatana gabadha waawda ee tiri waaw ee tiri yani weeliyay ku tagtaba cunug yar oo 5 jir ah oo waalanay noqotay subxaan allah war awlaad ilaahay dadka nimco siiba nimco alla ku siiba maahan inaad saas yeeshid subxaan allah gabadhi waawda ee tiri kaalibo si walba deesh abeeda yimid si walba hadee yeeshay mana sheegi karto meelay ku qaris maaski waxaa la geeyay isbitaalka dadkii daaweeyo maxaa la jiray maxaa la marad nafsiga loo geeyay dhakhtarka marad nafsiga loo geeyay dhakhtarkan wuxuu sheegay gabadhan wax raxiib yani wax cabsi ah inay aragtay maxay aragtay gabadhan TV ma ku dayso wax cabsi ma fiirsato fina cabsi ma fiirsato maya gabadhan ayaa u yimid male gabadhan waxay aragtay quraan la saar sheekha loo geeyay dhakhtarka la geeyay gabadhii waxay gaartay heer daawo lagu seexiyo daawo ay ku socoto daawo lagu seexiyo daawo ay ku socoto jidka markay la marayso gacanta haday ka qabato qofka agteeda soo maray waa qaylinay eeyadu agteeda soo mar waa qaylinay nyaanyoor haday aragto waa qaylinay gurigooda gambaleerka haday soo taabto waa qaylinay gambaleerka taa laga furay waa yaabto abtood hadda koo idhib xilka gabadhaada ku caafimaad tagtay nimcada allah ku yani ku caasisay maxaa gabadhaada saan isaga yeesh gabadhii ugu dambeyn ee dhakhtarka waalid wuxuu u qoray waali la siiyo daawo ee la keeno mar walba isbitaalka ay gabadhi daawada ku saxto ee daawo ku saxto mustaqbalkeeda hooyadeeda yani gacanteeda ku burburis yani maskaxda waa yartahay ilmaha haddaad si ilaahay xalkiisa ogeey ula dhaqantid maskaxdooda yartahay waaw qofka dee tiraanse kusoo noqoto adagta waxaa maqli jira muraayadda jabto see kusoo noqoto adagta subxaan allah marka ilmaha yararka ah yaan laga nixin waxaa jira xataa ilma yaryar oo ala Soomaaliya cunuga hurdaayo ulul kortagay qalad uu sameeyo cunuga isku hurday xataa ee sariirta looga daba tagay naxtintaas oo soo nacay waa wado yiraahdo ku waal kara ilma yar waay marka ilmaha yararka ah yaanan saas loo gelin waa iga talo ane waa iga waano ilmaha yararka saqiirada yaanan saas loo gelin qalad waay qasadan qasa cajiib ah waay وانا وحب بانتاي وعي قلين واي كوانا قادش واي سبحان الله قصيدا ما انت تاسكو اكتهي ان شاء الله قصيدا قصة لمد اه وحد الله جنالكو جنالكينا كسو دوادا انت قصوا نوتمت سبسكرايب نوده شير نوده لايك نوده كعمو فرام جنالكو جنالكيني حين كيكتايا باش برواقع عافمات عمرد ايه عبادة صوبا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.